العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سان إذن بلنقاتني إن أخرين دورنا إن شاء الله تعالى كتابك لرهدو الأربعين النووي وإمام النووي اللي في أفرطن إيو لما حديث واية إمام النووي لون سبيعية حديث كاس كتاب آد قالك وآد قيمة وين واية قفك مسلم oo xadiis kitaabkaas oo barta oo fahma mas'alada xifdiya xaqiiqa diinta islaamka wax weyn buu ka og yahay wax weyn buu ka qaatay. marka kitaabka aad loo qaadimay aad loo sharxay carabi ahaan boqolaal sharaxaad kartaa af ingiriisi loo tarjumay iyo waxa boqolaal af ay laga yaabaa in loo tarjumay. marka luqadayaalka caalamka maanta nool oo jirta waa loo tarjumay. marka kitaab saas u qiimo badan waaye. waxa aad u fiican ruux muslimka wiil iyo gabarba in xadiiskan xifdiyaan ay aad muhiim u ah. marka sidii adiga u soo daliilsato, sidii adiga ugu nuursato, si dadka u barto lafdigana si iska sax Allah subhanahu wa ta'ala xaqahan waafajiyo khatam wanaagsan xanasiyo. wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.